بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أيها الإخوة الكرام ولا ليال الله أيام حد بلارن لأن سكوا بكريم وفرصتها قارئا إحسيي إخوة الكرام ما أنتم حنس حسوسينينا إن يروا كمدا حيال الله سبحانه وتعالى ينوجدي وآدنا نبي وأماني قرآن كان آد لوجا أماني تاسو موضوع الله الصبر صبركو وواحد يدو ناكسن وواحد قيمة بدن خطرتي دباتوين كجيران لوجو جدبو إلهنا سبحانه وتعالى القرآن كما يرى بدن بكوش شيء صبر كي أجر كيس يدك صابرين توي حلو بلن قاضي موضوعا سويت أنا دورتي وحوا ما دام حالات العلوس الدنيا سوف تارتي قال إيه مسلم با مركا أرمهاس وخطرت بدن وحيالا لوجو بحلوجو جدبو وصبرك الله سبحانه وتعالى القرآن كحنوجا شيء صبر كاسوك هلايو ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بولي الله سبحانه وتعالى وأن إن امتحانينا وأن جربي وح عبسي كمذا شيء بولي الله سبحانه وتعالى إن يروا كمذا عبسي حق أمن دريئة بس عبارة يسجروين أيها اللي يمكن امتحاني من الجوع من الخوف والجوع كوالين جيسين ونقص من الأموال حريبا لإنكاديمي حوله أيها كاديمانا يو توقع باكاعوني هذي حولنا ولا أي هايين بل هذه العجا يهد واد مساري أو واد خساري بعشرات هذه حصول دعي توقع عنتك هاجدي حوله أما اسمه دبا دعيو مش ويجوانيسا ما اسمه أهرما بدن ayaa xoolii lagu nusqa wanaqsi min al-amwali xooliin in la dhimo oo ay nusqaamaan kuwii dhalanayay oo ilmihi ay dhiciyaan kuwii noolaa dugaag cuno abaar ay layso oo cudurro kale ay laayaan ayaa la ku imtixaani wanaqsi min al-amwali wal anfusi naftiina la dhimi qof baa ka dhiman qof baa ka jiran jiradiis kugu raagi oo kugu dheeraani yaa waalidkaaga haya islaantaada haata عرورتادي هاتا walaalka ahaay habaryarta abtiga adeerka ina eedada ina abtiga ina habaryarta waxay noqdaba ama nafsadaadi lagu imtixaan oo jiraaw lagu imtixaani waraqsi min al-amwali wal anfusi wath thamarati beerihi baa in kanu isqaamin beerihi baa badar ba bixinayni wixii baxay baa ilaahi wuxuu ku diraya udur samaawi afa samaawi ayaa ku dhici markaas badarkii baa baabaayo biilaan bay u baaysaa masmeehe haday baxdayna عذر بالغو سليدي او جريد غويني او بابييني من الثمرة والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الله سبحانه وتعالى بلنقاد بو دبا دغاي marka nabiga waxadu bishaaraysaa waleeyahay dadka sabro hadii absi lagu imtixaano hadii lagu imtixaano oo naf maal iyo beerihi hadii lagu imtixaano nimanka sabrayo u bishaaray waleeyahay Allah subhanahu wa ta'ala waxa loo bishaaraynaa waa janno sida darteedii صبرك waa aad iyo aad muhiim u ah صبرك culimada islaamku ay qiibiyeen saddex qayb loo qaybiyay as-sabru ala al-adha dibaatooyinka maqaadirta alle lagu sabro mid had jirto oo kale haday dhacdo iyo as-sabru ala taa'ati ilaahi lagu sabro iyo as-sabru an al-ma'siyah wixii ilaahi ka xarimayo laga go'o oo laga haro ila naftan waa amara bisu'i way nafsadan ilaahi nagu abuuray waa mid xumaan farid badan aydi shaytaan baa ayaa walaala ah ayaga isku baha marka xumaanta ay ku qurxini xumaanta ay kugula talini sida darteedii macsiyada in laga sabro laga go'o awaamirta ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku faray ee aad fartoonaato waa daacadii nawaahidana waa macsiyada laga sabro macsiyada in laga sabro waa lagu guuleystaayo waana lagu badbaadaa nimankii saddexda ahaayo la imtixaanay reer banu israel xadiidka aad ku dheeraa bukhari muslim bay qorahayeen oo ay wariyeen waxay nabiga kaleey salaam inoo sheegay saddex nin oo wadii ka horeeyay agaar ahaan reer banu israel ayaa in la imtixaanay mid baras qabo iyo mid indhala iyo mid
iyo mid baras qabo iyo mid indhala iyo mid faqiir ah iyo mid faqiir ayay ahay markii ilaahay inuu imtixaanu doonay malag buu soo diray markuu malagii loo soo diray malagii iyo mid badaar leh mid saddexaad mid badaar leh mid baras qabo mid indhoola ah iyo mid badaar leh oo indhaha timaha ka buubay saddexdaas ay ahaayeen waa la imtixaanay ilaahay imtixaankoodu doonay wuxuu u soo diray malag oo min almalaa'ika kamid ah midkii badaarta lahaa buu yimid markaasuu riniyow wuxuu yidhi maanta maxaad adduunyo ugu jeceshahay wuxuu yidhi haddii maanta leela tashto toyda la yeelo waxaa aad iyo aad u jeclaan lahaa in ilaahay timi ii soo bixiyo oo madaxayga madaxa dad ku ekaado oo tima aan ku haragoodo la isiyo ayaan jeclaan lahaa gacantuu mariyo wuxuu yidhi insha allah way timahaad way ku soo baxay xoolo maxaad ugu jeceshahay markaas wuxuu sheegtay geel ayuu sheegtay neef geel oo marka dhacis ah oo 10 bilood joogo ayaa la siiyay allah ku barakeeyo yiri timiina way soo baxeen kana geeliina waa u batay midkii labaad indhoolka ahaana wuu u yimid oo maad maxad jeceshahay in hadda ilaahay aragayga soo celiyo oo ummadda aan arko oo khatarta aan kaga wareegto ayaan ugu jecelahay yiri insha allah alle uu ku soo celiyo kana waa masaxayo waa u duceeyay maxaad hore ugu jeceshahay loo buu sheegtay asagana neef loo hadda dhalayo oo candhada banaanka taal ayaa la siiyay midkii kaleeto oo baraska qabay ayuu u yimid markaas wuxuu yiri maxad jeceshahay hadda inuu marka dubkan isaan u ekaaday oo khatarta oo cadaantan dadka igu nacayaan in ilaahay iga bedelo oo gibil wanaagsan la iso ayaan jecelahay asagana waa u duceeyay ilaahay gibilkiisa waa u soo celiyo maxaad hore jeceshahay ari buu sheegtay arigii baa la siiyay marka saddexdii nin marka imtixaanka la mariyay kadib kana geeli u batay kana loodi u badantay kana arig u batay saddexdoodii hadii lafdi wadan kala badgeediyayna waa nafi shaydaane xadiidka marka saddex nin oo noocaas ahay oo la imtixaanay buu ka sheekeynay imtixaankii mar labaad baa ilaahay ku soo celiyay in nimankan ku xoolo ku baqiilay iyo ku ilaahay ugu shukriyo oo ugu mahad celiyo oo dhibaatadii haysay garto ayuu ku imtixaanay ninkii malagii baa mar dambe soo noqdo kii indhoolka asagoo sidiisii u dhala ama se kii baraska qabay asoo sidii baras u leh oo gibil cad buu u yimid wuxuu yiri markaas niyow hadee nin miskiin ahay wadada maanta jisinkii baa iga go'ay saayidii baa iga go'day bal waxa maanta aan ku gaaro ma lehe bal adiga ilaahay inuu igaarso tama marka kadib kaalmaadiisa inaan ku gaarmooyo waxba ma haysto bal ii kaalmay markaas markuu wuxuu yiri warniyo xoolaha xuquuqda lagu leeyahay way badan waa ninkii geel lahay ugu ya xuquuqda xoolaha lagu leeyahay way badan tahay markaas wuxuu yiri niyo ma soo uma malayso nin aan garan jiray oo hadee dhibaataysanaayo ilaahay haduu wax siiyay maya wiil xoolahan marka abka soo gaar weeyo fir baan ka soo dhaxlayo marka hodantan waa la nagu yaqaan ninka waa faantamay markaas uu hadii been sheegi sidaad awleed Allah ku yeelo waa ka tagay hadii ninka sabar baa laga laay ninkii kale tuu yiro noqdo laha markaas uu niyo aniga hadii nin musaafir baan ahay wadadii baa maanta saayidii baa kala go'day jiscin ma haysto jid mar ma haysto bal neefku aan wadada ugu gudbo bal maanta inaad un ilaahay kaalmo kadib adiga aad kaalmeeyay ugu siiso waxaan jid ku mar inay siismooyeen marka way iga jajaban tahay marka tiriniyo xoolahan ugu leeyahay way badan yihiin waxba kuma hayo niyo soo nin aan aqaanay ma hanjiroon dhibaataysan jiray maya xoolaha waa awowgaso warkii nin kale tuu sheegay nin saddexaad baa loo yimid saaxiibul arigi ninka ariga lahaa markaas marka niyo jiscinka baa iga go'ay saayidii baa iga go'day wadada waxaan ku marma haysto bal maanta ii kaalmay inaad ilaahay kaalmayso kadib aad ii kaalmayso mooyay markaas niyo waxaad yeelaysaa xoolahan waxaad rabta ka qaado waxaad rabtana iga tag neef dar alle maanta u qaadatay inaan kula qabso mise aad iga tagto kuguma maadinayo waxaad rabta qaado u dhahay markaas aniga imtixaan baan ahaayo hadii saaxiibadaadu waa leen imtixaanay labadoodii way dhaceen adna waad guuleysatay marka ugu wiil xoolahaagan Allah ku barakeeyo marka horta xoolaha adduunyo hadii lagu siin waa lagu imtixaani hadii caafimaad lagu siin waa lagu imtixaani hadii lagu jirisiin jirad waa imtixaan hadii aruur lagu siiyo waa imtixaan hadii aruurta laga qaato waa imtixaan hadii caafimaad qabtay waa imtixaan hadii laga qaadana waa imtixaan marka imtixaan baa hadda ina hayo imtixaankaas waxa lagu gudbaa sabar baa lagu gudbaa inaad sabarro ayaa la rabaa hadii maanta hadda imtixaanka jiro waa jiradan coronavirus leeyahay jiradan marka dadka muslimiinta ah tawakkul inay Allah tala saartaan ilaahayna loo isu dhiibo ilaahay cibaadadiisa la badiyo sabarna la muujiyo
aanan la argagixin oo la baqin un baa looga baxayaa marka nabiga kaleey salaatu wasalaam saabiriinta aad ilaahay quraanka meel baad ku sheegay marka yaa ayyuhalladina aamanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun wardadka alle akhrirum hadaatihiin sabr oo kaladan la sabarta maali قال هذا أيوه إلهنا أقوني ويصبران وتنادى تلياني وليه wax kasto aan awood isbidayn waan sameeynay cirkiina isu dhiibnoogi asagoona ilaahay jiritaankiisa inta ku rumaysan yahay oo ay ka qasan tahay wili oo ilaahay qeyrkiisa ciise inuu wax taray aaminsan ayuu leeyahay cirkaan isu dhiibayna ninka muslimka hadda wax leeyahay gaalada la sabirtama wabash marka wasaabiru wattaqullaha la'allakum ilaahayna ka baqa kadib waa liibaanaysin baa leeyahay sabr oo gaaladana sabarka ka badiyaan leeyahay marka gaala inay sabar ka xigsato malaha maxaa yeelay nabiga kaleey salaam quraanku meelo badan ilaahay wuxuu ku leeyahay gaalada hadii dhibaato ay ku dhacdo gaar ahaan mushrikiintii waaga quraanka soo degay joogtay da'awla mukhlisin lahu diin gaar ahaan bad oo kale markay marayaan oo doonta ay leeyihiirto dabeesha ay istaagto masaahirka adu kaco oo ay khatar garaan da'awla mukhlisin lahu diin allay bariyaan ayaga alla kaliya cibaadad iyo daawada marka bariyada u baraxtirayo فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون هذه اللي قبل بعدي خطرت هذا شركي ورا كميسة يشركوا يقال لمدي معصية كون هذا علينا إيمانته هذه ما كورونا فيروس إلى وكقاضه أنت صهرتي قال لي موضوع ما يكون هذا حديقة يانو منكر كي معصية إيو على ديد كي إيو استرادب كي وبي بلا بايا قفكم مسلم كمركو حال الروا حال هذا وكذا مركي دعوه إنه صبره دول قاته قال هذا الصبر وكبديو إلهي تقوى دي سنة وكده داره كدي مرك إلهي وابلن قاضي وبشر صابرين أيضا حلو بشارتك كصبرايو جنة إيو إن دبعتنا لقى فايدة أنت وبشارة لي تنو حوالي لعلكم تفلحون وحلاقي إن الليبان ليبان محل ويلي مرك صبر كاسل وحلا النبي عليه الصلاة والسلام صبر كأد وأمانة وحيري مؤمن كحالة دي صار الله ياب له وعجبا لأمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن قفكم أرمي سنن والله ياب هدي دبعته كل عضو صبر وصبر ودلقاذا إلهي بأسكو حيري فكان خيرا له خير بيوهاني وإن أصابته ضراء هدي نعمة وناقي برواقات كل عضنا شكر إلهي بكو شكرين قوقي كبر لما هذا يسجد نعمة وكو شكريا دبعته وكو صبرا لابد جرب خير بيوتايبري وليس ذلك إلا للمؤمنين قف حالات دي مركز دبعته ضنا خير ونغنيسو مركز نعمة يستنى أجر وناق لوجو قرايو أن مؤمن أهل مجرت له النبي عليه الصلاة والسلام وليس ذلك إلا للمؤمن مرك مؤمن أرين جس وأرين لا ياب له هدي اللي بعطوه إلهي بسودي وإلهي بكوحر ناري خير بينه ونيس أجر إيو ثواب إيو وناق بهلكسين هدي النعمة يستنى مكبر يو إلهي بوجو شكرين لئن شكرتم لأزيدنكم يو شكري هذا النعمة دي بالله باللارين أو عافمات كي بالله كورين أو وناق بوكيه لا نين لا ولا جرب خير أريميز خير مجرو إلا مؤمن كمويه النبي عليه الصلاة والسلام مرك مؤمنين تحلون دردار ما يصبر النبي عليه الصلاة والسلام وحيري قفكين هدي اللي امتحانه كارهان أنا مد وجعلا كبر وجعلا أو حاسكي سيهن أما أنا أسوق عليه وجعلا ولالكي وجعلا هو يدي أبي وجعلا هذا أنت لشيء واحد كوين وجعل كذا أو أكتر كوين وجريه هدي لقى قاضو وصبره بدل كود جنة على سيم النبي عليه الصلاة والسلام جنة الوجو بدلي صبر ما لا نقرأ مرك صبر كنا مرك وهريسو مصيبة دعيسو أيها أنت هذا أرجحين إن أسقطه جد يجيسو وأد كيسة أيال هوا النبي عليه السلام والسلام حصمري إسلام قبرك وأقوينيسو مركز تقولنا صبر بير إلهي يسودي بو سانو أرجحين عبسيدا نافو صبر بير مركز سيتري إليك عني لم تصب بمصيبتي بيتري يكفوا بيتري مصيبة أنا يقول عضي أوكي كوكو مدينة أساس هذه هذا صبر مركز كداف بيتري ما ينعقوني النبي عليه الصلاة والسلام مركز النبي عليه الصلاة والسلام وحيري إنما الصبر عند ناكتي النبي ما ينعقوني مركز كوكا عن سيرتي وصبر كودر دار معي قاذا ويدي أيها وحالي النبي وكتجي مركز أنا ويا ركان إنتي بيوينيس قبري بيكودوا الوينيس هالي مركز دتك بقى واحد كله هنقف هذا الكل نيس النبي وهاي مجرتي ويسوق رضاه النبي يقول يسيتمي واحد الباب كجوجو كعلنا ما ولا حبل مركز سيتري النبي وما أنا أقوى سنينه هذا مركز صبر كيدر دار ما يسي بلوان صبري بيتري مركز النبي عليه الصلاة والسلام وحري الصبر عند صدمات الأولى صبركو وكذي ده هره مرك هره مصيبة يكوكو سو كذي نيزو أنت هتفرنا حظه حزقرن وين واحد سميسه واحد بيسيين جيرينه
marka isqabow bi nabiga kaleey salaatu wasalaam marka sabarkana masaa'ibka markay hor leeyihiin in dulqaad la muujiyo la arko mar adi ooydo oo waxaad bi in lahayd aad biisayo hadda isdhiibi gadaal dambe oo tawar weyde lama rabo marka hore musiibada ay weyn tahay kulashahay in lagu dulqaato loo sabro ayaa la rabaa marka ikhwaani marka hadii qof aad jeceshay laga qaado aad sabirto bedelkeed jannaad leedahay wili kedeeda hore oo musiibada aad u culus tahay oo aad u cararteeda oo xoogan tahay in la sabro ayaa la rabaa waxa kale oo nabiga kaleey salaatu wasalaam uu sheegay oo inay janno leeyihiin haday sabraan dadka indhahoodin aragga la tiro oo nuurka laga qaaday haday sabraan nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri Allah subhanahu wa ta'ala hadithul qudus wuxuu ku yiri odoonkayga oo mu'minka ah ama gabadha mu'minada ama wiilka mu'minka ah hadii labadiis indhood oo jeclaa laga qaado oo sabro istacwadu ma janna ayaan bedel siin bedelkoodi janna ayaan ugu bedelay wiilay halaayada intay la eg tahay weynideedii ayaa hadii la sabro yu ajarka looga nabiga kaleey salaatu wasalaam la yazal mu'minu bil balaa marka balaayada mu'minka kama zuushu yiri marka hatta odax kumadays Allah ka dhige hadaad adigu ku sabarto inna lillahi atiraado marka dambiga lagaaga hubayn oo ajar weyn baa lagu siin ambiyada ilaahina waa la imtixaani jiray way sabri jireen ajar weyn oo weyn alla soo koobayn ayaa la siin jiray Allah subhanahu wa ta'ala quraanku wuxuu nooga ballan qaaday dadka saabiriinta ajarkood wax loo xisaabaa in xisaab laan la siinayo inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab dadka sabro sabrko badiyo ajarkood xisaab laan baa la siin marka wajazaa'u saabiriin aljanna way dadka saabiriin janna awaalkooda la siinayana waa un janno saxada hore hadii hore aan soo sheegnay marka ikhwatal kiram xaalada maan taagan xaalad aad iyo adag weey maadaama cudurka khatarta la sheegay oo dadkii adduunyada wax xisbiday dhan dhulka dhigay oo marka kuwii xaqdiidka ahaay Allah aqoonin Allah baray oo inkastoo hata Allah garashadooda cirku gacmaha u taagtaagayaan moogi iimaan dhabana ana laga helin anaga muslimiinta ah balaayada inayna gilgilin oo cabsi nuga abuurin oo aan sabarno ayaa la rabaa sida darteed marka hadii aan sabarnana abaal gudkaas faraha badan baa inoo yaal janna ayaa ilaahay noo ballan qaaday nabiga kaleey salaatu wasalaam maalmaha kamid ah soo qandaysan ayaa waxa uu yimid ninka la dhigay Abdullah ibn Mas'ud markaas marka uu taabtay nabiga qandha daran hayso arkay nabiyo miya lagu qandaysiyaa buu yiri qandha aad iyo aad u adag haabul wali qandaysiyaa buu yiri qandhada aniga qabanayso laba qof adinka in kamid inta qaban leed ayaa la ilaa jibaara buu qandhadayda waa laba jibaaru nabiga kaleey salaatu wasalaam markaas Abdullah wuxuu yiri ma nabiyo inaad leedahay laba qof ajarkoodi inta la siin lahaa in lagu laba jibaarmiya jirada lagu laba jibaaraya markaas naam arinku waa sidaas nabiga kaleey salaatu wasalaam marka hadii jirada ay kuga adkaato ajar fara badan baa lagu rajayni sabir hadayna jiri ku qabanina cida haysana u duceey adigana hadii ku soo gaarto nin sabrayo alla ku xiran noqo markaas ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala masaa'ibta naga badbaadinaya marka bashaarada aayada quraanka ay sheegtay waa jannadaas yaa la seegi ulaika alayhim salawatu min rabbi wa rahma wa tilaa ilaha nimanka saabiriinta waa ku dushooda naxariis alle iyo raxmad bay ahaatay wulay wa ulaika hum muhtadun ayga hanuunay sahih bukhari waxa ku taala ayada markuu imaamku qoray wuxuu yiri nin taabici hadalkiisu soo raaray wuxuu leeyahay ni'mal himlani wal alaawa ayuri waxa aad iyo aad u wanaagsan oo qiimo badan labada garab saarka iyo midka dhax saarka hadii dadka baadiyo xoolo raran jiray ayaa yaqaano ridii wala laba haamood oo weyn marka labada dhinac laga kala saaro mid yar baa dhaxda la saari jiray marka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri waa bashar alladina idha asabat musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dadka marka musiibada ku dhacdo ila anaga ilaahay baa sugnaa ilaahiisa u laabanay dhahay ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma kuwa sida dhahay marka dhibaato ku dhacdo sabrayo oo hadana inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dhahayo ayaan ni'mada buu yiri marka kuwaas ulaika alayhim salawatu min rabbihim naxariis ay amaan al xaq ay ka hatay iyo rahma ayaa korkooda hatay wa ulaikumul muhtadun marka labada garab saarka waa raxmadii alle iyo amaantaas alle salawaadka ilaahay ah weeyaan dhaxsaarka lagu sheegay waa hanuunka marka hadii musiibo kugu dhacdo in la sabro la dulqaato ayaa la rabaa saad u noqoto saabiriinta ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada ugu bishaareey markaas umadii hore waa la dhibi jiray imtixaan bay soo mari jiray saxaabadan waa la dhibay dib aan la malaysan karin ayaa la mariyay markaas way sabreen sabarkii darteed ayaa adduunyada dhan saxaabada gacantooda ilaahay u geliyay oo gaaladan ay hogaansatay sida darteed marka muslimiinta meel ay joogaan maanta cudurkan la sheegayo waa awaamir ilaahay soo diray oo gaala lagu edbin
annagana ajar iyo raxmad ayay noo noqonaysaa sida umuna Aisha ay lahayd طاعون بقى النبي عليه الصلاة والسلام كسر عليه تري عذر كدلاك هايو مركز طاعون كلني جري النبي عليه الصلاة والسلام وهيري عذر كاس ومضي هو عذاب لو صادروا أهان جري ومضى رحمت بقوي هاي نيكي كود انتنا أجر الشهيد بالله رجي مركز هذا درت هذي مركز حالات هذا ما أنت جرته إن أنا أرجع حين ونجي أبينينه وأن صبر يدلقات أن يلانه أو سي الله سبحانه وتعالى مركز بشارة دي صابرين تقبلن قاضي هي الجنة دي دتك صبر يقبلن قاضي iyo ajarkii xisaab la'aanta ah oo laga yabo sabarka saan u helno inaan la sabra ayaa la rabaa maxay ilmaanta hadii cudur la sheegay dad baa shaqadoodu waayay dadka shaqadoodu waayay haday inay sabraan baa la rabaa maxay ilaahay subhanahu wa ta'ala usri gadaashi yusri balan qaaday fudayd baa ka dambeeyay xaaladda kii jirada soo marto inuu ilaahay caafinayo waa inuu ilaahay ka rajeeyo alla isu dhiiba marka wadooyinka kala xirmay qudaartan suuqi la xiray wax ka soo xirmay dad badan shaqadooda waayay dadkii ay boylay jireen gacantoodii marka maanta ay abar ah ku soo dhacay marka dadka ayada waxa loo dardaarmaya inay sabraan si ay u helaan ballanqaadkii bishaaradii dadka saabiriinta loo ballan qaaday iyo jannadii loo yaboohay iyo ajarkii xisaab la'aanta ahaa oo loo ballan qaaday saan u wala helno sabir ayaa la rabaa markayga marka intaas ay ku soo koobaya kulay ramadaan waa soo dhow yahay hadda iyo wixii ka dambeeyay ramadaan iyo xaaladiisa laga hadli doonaa warka maanta marka mawduucan naftii u dooray waa sabir oo sabirkaas ayaan isu dardaarmayna odax ku muday hadii ajar lagaaga ballan qaaday hadda inaad ku sabartay waa kuleelkeed wixii odaxba ka weyn oo dhagax turaanturayo kugu dhuftay iyo wixii kala masaa'iba ka weyn hadii aan ku sabarno oo wili gaar ahaan marka koobaad oo joogta ay dhacaysa aan sabir iyo dulqaad iyo adkaysi aan maajino ilaahay subhanahu wa ta'ala jannadaas oo saabiriintu ballan qaaday iyo ajarkaas loo yabohay ayaanu leenahay wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wasallam ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa cudurradan khatarta ah inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala muslimiinta ka dulqaado kuwii hayaan ilaahay ka qaado kuwii aanan soo gaarin ilaahay aanan soo gaarsiinin gaaladana cadaab iyo halaag uga dhigo say ilaahay ay ugu gartaan oo ku ilaahay ugu gaansamay ay ku noqdaan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa roob barakaysan inuu ilaahay nasiyo cirka barakadii noo soo dejiyo dhulkana barakadii inuu ilaahay noo soo bixiyo alla weydiisanayna dambigeena kii waalidkeena u dhaafo wixii kalimaad oo nasiixa isu gudbinaynana annaga bi adinka batu ana anfacado inuu ilaahay ka dhiga ayaa alla weydiisanayna muslimiintana waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo ilaahay dhahay alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ku hadalada dhageysto qaybta wanaagsan ka qaato oo ilaahay ku arzaq inuu ilaahay ka dhigo ayaan weydiisanaynaa wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wasallam